نبي عليه الصلاة والسلام حين ليه سؤال بلويدي يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله dadka yaa alle agtiisa yaa alle u jecel yahay ama acmaasha kuweebaa ilaahay ugu jecel yahay nabigu wuxuu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas ilaahay dadka wuxuu u jecel yahay kuwa dadka ugu nafci badan u fiirso anfacuhum lilmu'miniin xataa lama odhanin maxaa la yidhi anfacuhum linnaas khalqiga ilaahay oo dhan cidii u naxariisata wa axabu alacmaali ila allah عملنا إلهي وتشعلينا وحكمدا سرور تدخله على مسلم قف مسلمات كفر حصة قف مسلمة واتكفر حساب النبوي وسأله وكفر حنيا تكشف عنه كربة ببهيستي واتكفيده أو تقضي عنه دينا دين لك عكار الله واتكب حصة أو تطرد عنه جوعا قاتشه يسي واتكب إسه ولا أن أمشي مع أخ في حاجة بنبوري قف مسلمين راعه ودنتي سانو راعه أيا أكتيد لقاك القعل بدني بنبوري مساجد كي جينا بلكو اعتكافه مساجد كي النبي قوحنا نقلنا صلاة اللي قلت كذا هنا إلا ميتهاي محي كن صلاة دو ميلك اللي قلت كذا حلقة صلاة اللي قلت كذا حاول أنت كن صلاة وميلك اللي قلت كذا masaajidka inaad bil ictikaafsanaato oo salaadaho dhan ku tukato waxaan ka jeclay buu nabigu leeyahay qof muslim oo aan dantiisa la oofiyo yani ajarka uu ka helayo nabigu tilmaamaya waman kadama ghaydahu buu nabigu yidhi qofka muslimka ee cadhadiisa xidha kadmiga waxaa la yidhaahdaa sibraarka iyo waxa la mida markaad afka yar ee caano ama biyo ka baxaan aad xadhiga ku geejiso wuxuu leeyahay waman kadama ghaydahu qofkii cadhadii u cadhaysanyay laakiin wuxuu rabaa cadhadiisa inaanay soo bixin wax laga cadhooda lagugu sameeyey idinku odhan maysaa cadhooninoo dee qofka bini aadamkiiba waxu dhibsado hadduu arko wuu cadhoodaa laakiin waxaa lagu diidayay inaad markaaba jawaabto ficil samayso markaa qofkii cadhadiisa qarsada buu nabigu leeyahay oo walow shaaa an yumdiih hadduu rabo inuu fuliyana fulin karayay ducada rabo inuu fuliyo waa fulin karayay tamar darra maaha waxa meesha dhigay laakiin waxa meesha dhigay waa maxay ajaru ilaahi ka raadinaya subxaanahu wa tacaala kaamala allahu qalbahu yowma alqiyaamati ridan buu nabigu leeyahy qalbigiisa ilaahay maalinta aakhiro raalli ahaanshiya ka buuxiya maalinta la wada baqaya la cabsanaya khawfka iyo dhibta badan ay jirto maalintaasuu qof qalbigiisu xasiloon iyo rida uu ku jira yahay waman masha qofkii raaca walaalkii si uu dan u leeyahay ula soo qabto ilaa uu kala qabanayana la jooga habbata allahu qadamayhi yowma tazuulu laqdaam maalinta aakhireed dadku cagahoodu aanay sugmaynin ayaa qofka ilaahay gomadiisa sugaa waina suu'a alkhuluq buu nabigu yidhi dhaqan xumadu akhlaaq xumadu la yufsidu alcamala kamaa yufsidu alkhallu alcasal sida malabka khalku u fasahaadiya khal haddaad malab ku darto u baabi'iyaa sida khalku malabka u fasahaadiyo ayay dhaqan xumadu camalka u fasahaadisaa buu nabigu leeyay su'ul akhlaaq camalkaagii wanaagsanay aad shaqaysaysay wuu kaa fasahaadinaya ayuha alaxiba nabigu wuxuu inoo sheegay nin ama gabadh dhaqan xumo soo sameeyey oo uun dee say culammada qaar yidhaahdaan toobad keenay laakiin ay waraabiyey oo ilaahay ka abaalmariyey qiyaas ilaahay baa dembigeeda dhaafaa la yidhi oo uga mahadnaqay eygay waraabisay eygii haraadana xadiiskii sheegay haddii ay haraadan waxaa lagu helayo qof muslimoo gaajaysan maxaa lagu helaya ama qof muslimoo haraadan ama qof muslimoo dhiba haysato inaad ka fogeyso